بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسنا قيارتا ودان ku saaxiibnayo idil kiimba meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiin waxaan idin leenahay muuqaalka la gareeya lana sii wadaaga saaxiibadiin waxaan ilaahay idinka baryaynaa qof walba oo la gareeyo in ilaahay umurihiisa uu sahlo faraj qeyr qabana ilaahay uu u furo ilaahay subxaanahu wa ta'aalaana awlaadda uu barakeeyo inta awlaadda aan haysaninna ilaahay awlaad baariha siiyo xaasidka leegta baqiilana waxaan leenahay xaasidow adduunyo iyo aakhiro ma liibaanaysid maxaa yeelay waxaa tahay xaasid alxaasid laa yaflax wa min sharri xaasidin idaa xasad leegta lacag ma ee ku dhufo iska daa xaasinimada addoon yahow waxaan eegi doonnaa warbixin xasaasi ah oo ku saabsan muddooyinkii dambena aan idiin soo gudbinaynay oo ku aadan hay-adda nisa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya arrimaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaabilsan iyo dagaalyahanada al-shabaab oo muddooyinkii dambe isbaacsanayay isla markaana taasi waxay keentay in shakhsiyaad badan oo dowladda ku jira la sheegay inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab kadib markii la qabtay nin muddo la raadinayay hay-adda nisana ka tirsanaa ahaana madaxii amniyaadka maxamed xaajow oo loo yaqaan ilka case ama caddaawe kaas oo dad badan sheegay haddaba waxaan eegi doonnaa isku milimka hay-adda nisa iyo weliba nabad sugidda iyo qaabka ay isku dhex galeen nabad sugidda iyo nisa oo hadda la sheegay in tuhun badan uu jiro taasoo ku aadan in hay-adda nisa iyo weliba tan booliska Soomaaliya ay ku jiraan kuwa badan oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab horena ugu tirsanaa ururkaasi iyo kuwa qorsoon oo aan ka tirsanayn dagaalyahanada al-shabaab inkastoo ilka case uu sheegay inay jiraan xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya agaasimayaal guud iyo weliba xubno u dhaqdhaqaaqa dowladda Soomaaliya oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab kuna saacida shabaabka weerarada ay geystaan iyo qaadista canshuuraha ay ka qaadaan meelo ay ka mid tahay degada Muqdisho haddaba arrimahaasi waan eegi doonnaa hadduu Allah awood leh uu saamaxo waxaan idin leenahay haddaad nagu cusub tahay si aad u heshid xogta iyo weliba macluumaadka aan soo gudbinno furo gambaleerka si ay ku soo gaaraan macluumaadka aan soo gudbinno intiini la socotay waxaa dhawaan la qabtay oo magaalada Muqdisho lagu soo bandhigay dil toogashana lagu xukumay maxamed xaaji ilka case oo ahaa madaxii amniyaadka al-shabaab kaas oo muddo la shaqaynayay hay-adda nisa ilka case sida la socoteenba waxaa warbixinadii hore aad ku daawateen inuu shaqageliyay isla markaana uu yimid waxaadna ka daawan kartaa haddaad hore u daawanin muuqaallo hore oo aan soo gelinay sakariya ismaaciil xirsi madaxii sirdoonka ee al-shabaab haddana ahaa madaxa sirdoonka ee nisa oo xilka laga qaaday kadib ceeb dhacday waxaana maxamed xaajow oo loo yaqaan ilka case markii la qabtay kadib uu sheegay shakhsiyaad tiro badan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya kuna jira baarlamaanka qaarkoodna ka shaqeeya dekada Muqdisho shaqaale badanna ay ka tirsan yihiin gobolka Banaadir kuwaas oo la shaqeeya dagaalyahanada al-shabaab waxaa la qabtay dhawaan fanaan ahaa agaasimaha waaxda fanka ee gobolka Banaadir kaas oo xalay sidaan idiin soo gudbinay hadda gacanta ugu jira hay-adda nisa waxaana afkiisa uu ka sheegay in 2013 uu ku biiray al-shabaab haddaba isku milimka al-shabaab iyo dowladda ilaa intee la eg ayay soo jirtay waxaa kol hore magaalada Muqdisho ka tagay xildhibaan Saalax Badbaado oo ka tirsanaa baarlamaankii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf kana mid ah xubnaha ugu firfircoon ee baarlamaanka da'diisana ee ahayd da'da odinimada waxaana uu u galay dagaalyahanada al-shabaab aakhirkii xildhibaan Saalax Badbaado oo ka mid ah xubnaha ugu firfircoonaa baarlamaankii Soomaaliya asoo aaminsan mabda'a al-shabaab wuxuu isku qarxiyay eelaboorka magaalada Muqdisho dhanka dowladda waxaa soo galay saraakiil sarsaro al-shabaab ka tirsanaa uuna ka mid yahay amiir ku-xigeenkii dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab Sheekh Mukhtaar Abu Mansuur iyo sidoo kale madaxii amniyaadka dagaalyahanada al-shabaab oo ka mid ah shakhsiyaadka ugu khatarsan al-shabaab ee Mareykanka lacagta badan ee dul dhigeen sakariya ismaaciil xirsi oo dabadeed hadda dowladda jirta ee u dhiibtay madaxa sirdoonka ee nisa walow hadda xilka laga qaaday maadaama ay dhacday ceeb iyo fashilaad sidaasi ayay isku badbedelayeen dowladda iyo shabaab oo ay isku dhaxmilmeen waxayna taas ay keentay in dowladda Soomaaliya iyo weliba dowladihii kale dalka soo maray intooda badanba ee mudnaanta ay siiyaan dagaalyahanada sheegay inay ka soo goosteen dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaa lagu samayn jiray ama la siin jiray gawaari ay ku socdaan Muqdisho kuwaas oo ay ku soo qabtaan ragga ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab inkastoo intooda badan ay mabda ahaan weli ay aaminsanaayeen aragtida al-shabaab laakiin maanta maxaa dhacay saldhigyada magaalada Muqdisho dhan waxaa booliska haysta saldhigyada oo ah taliyaal saldhig dagaalyahano ka yimid al-shabaab
17 degme ee gobolka Banaadir taliyaha saldhigga waa wiil dhalinyaro ah oo ka tirsanaa amniyaadka al-shabaab kaas oo hore Muqdisho dadka ugu dili jiray maantana ka mid ah dagaalyahanada ama ka mid ah saraakiisha booliska. hay'adda nisa markaad fiirisid awoodda ugu badan waxaa ku leh dadka ka soo goosta dagaalyahanada al-shabaab oo la siiyaa mudnaan gaar ah waxayna xirtaan darajooyin midda ugu yar ee tahay kabtan. waxaana taas dadka arrimaha amniga falanqeeya ay sheegayaan in ay sii kordhinayso dhibaatada iyo weliba amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho iyo weliba guud ahaan Soomaaliya. deegaanada kale Soomaalida markaad fiirisid sida Puntland, Somaliland, Galmudug waxaa si weyn loo takooraa iyo weliba Jubbaland waxaa si weyn loo takooraa dhalinyarada ka soo goosata dagaalyahanada al-shabaab lamana siiyo mudnaanta laga siiyo magaalada Muqdisho. waxaana mudnaanta Muqdisho laga siiyo dagaalyahanada al-shabaab ka soo goosta ee keentay in qaraxyada iyo dilalka ay kordhaan. waxaase hadda arrinta taagan ee tahay oo la doonayo in laga hadlo waxaa saraakiil ka tirsanaa dagaalyahanada al-shabaab gaar ahaan qaybta amniga gobolka Banaadir ninka madaxda u ahaa Maxamed Xaaji Ilka Case wuxuu sheegay dad ku dhow 100 qof oo ka tirsan shaqaalaha dawladda qaarkoodna ay yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka. waxaana Maxamed Xaajow Ilka Case uu ahaa 2012 ilaa waqtigan aan joogno madaxii amniyaadka al-shabaab ee gobolka Banaadir waana shakhsi xog badan ka og dagaalyahanada al-shabaab. waxaana Xaajow la sheegay in uu qirtay ama uu sheegay dad badan uu la shaqeynayay waxaana ka mid ah fanaanka hadda la xiray. sidoo kale waxaa jira ku dhawaad 60 shaqaalo dad ku dhow oo ka shaqeynaya gobolka Banaadir in shaqadii laga raacdeeyay kadib tuhun la xiriira inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab kuwaasoo shaqadii gobolka Banaadir laga joojiyay kadib markii ay wareysatay hay'adda nisa shaqaalahaasi. waxaa la sheegay in shaqaalahaasi mid ay u wareysteen saraakiil sarsare oo ka tirsan hay'adda nisa si loo ogaado hadalkooda. waxaana shaqaalahaasi in badan oo kamid ah soo farmuuqay Ilka Case waxaana hadda ila xoogaale ay sheegayaan in hay'adda nisa ay shaqaalahaasi ku sugan Muqdisho laga joojiyay shaqadii gobolka Banaadir dhaqdhaqaaqooda ay la socdaan nisa si loo kala cadeeyo warka uu sheegay Ilka Case madaxa amniyaadka gobolka Banaadir run ahaanshihiisa. waxaana la xiray tiro badan oo baaris la sameeyay nisa ay sameysay ee ogaatay in warka uu sheegay Ilka Case uu yahay war sax ah. waxaase jira xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo leh xasaanad kuwaasoo ka mid ah kuwa uu sheegay Ilka Case oo ku aadan inay la shaqeynayeen dagaalyahanada al-shabaab. Galmudug baarlamaanka la soo xulay waxaa la sheegay ku dhawaad 20 xildhibaan inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab dhankooda ay ka yimaadeen sida ay sheegeen xubnaha al-shabaab ka tirsan ee gacanta lagu hayo oo uu ka mid yahay Ilka Case iyo weliba dadka kale uu sheegay oo qirtay hadda in ay ka tirsanaayeen dagaalyahanada al-shabaab kana tirsanaayeen dawladda Soomaaliya. hay'adda nisa waxaa taliya ka ah Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo si weyn dagaalyahanada al-shabaab u taageeri jiray isla markaana xagga meediyaha iyo weliba fanka dhanka dawladda Qatar ka taageeri jiray laakiin maanta waa taliyaha hay'adda nisa laakiin hay'adda waxaa kor ka maamula nin lagu magacaabo Kulane kaas oo ah diyaasbara ka yimid Mareykanka 3 markii loo qeybiyo cumrigiisana 2 ka mid ah ku soo qaatay Mareykanka Soomaaliyana aan wax badan ka ogeyn. dad badan ayaa ku talinaya in hay'adda nisa lagu sameeyo isbedel si loo helo dad khubaro ah oo arrimaha amniga u dhundaleela arrimaha amnigana wax weyn ka yaqaan kuna sugnaa Muqdisho tan iyo markii la aasaasay dagaalyahanada al-shabaab xogtooda iyo luuqa ay galaan iyo weliba wadada ay maraan yaqaan. laakiin waxay sheegayaan in weli ay jirto xabaacsanaan inkastoo nisa ay wada dadaalo badan marka laga reebo ceebta ka raacday Maxamed Xaajow oo la shaqeynayay 2017 ilaa waqtigan hay'adda nisa. waxaana arrintaasi xilka lagaga qaaday madaxii sirdoonka nisa oo ahaa ninka labaad ee ugu awoodda badan hay'adda Sakariya Ismaaciil Xirsi oo dusha saartay mas'uuliyadda shakhsigaasi in muddo dheer hay'adda uu ka shaqeeyay asoo ahaa madaxii amniyaadka ee gobolka Banaadir dilalna geysan jiray. laakiin dad badan ayaa weli isweydiinaya halka ay ku dambeysay dilistii la dilay duqii Muqdisho ahaana gudoomiyihii gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow oo sida la sheegay ay dishay gabar ka tirsaneed agaasimiyaasha gobolka Banaadir ahaydna agaasimaha naafada gobolka. laakiin dawladda weli maysan keenin cadeemo dadka ay ku qancaan oo muujinaya kaamirooyinkii goobta laga duubay iyo weliba gabadha in ayada ay ka dambeysay. waxaana dad
badan ay aaminsan yihiin oo anigaba aan ka mid ahay in qaraxa gabadha indhoolaha ah uu ka wan yahay ayna ku lug leeyihiin mas-uuliyiin kale oo gacan saar la leh dagaalyahanada al-shabaab welina aan la aqoonsanin kuna dhex jira dowladda Soomaaliya waase muhiim dowladda inay soo bandhigto qaabka uu dhacay dilkii duqii Muqdisho ahaana gudoomiyihii gobolka Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso oo weli la sugayo qaabkii loo dilay dowladda inay cadeyso waxaan idin soo gudbin doonaa warbixino taxana oo aan kaga hadli doono isku milimka dowladda Soomaaliya iyo waliba dagaalyahanada al-shabaab oo aan warbixino kala duwan oo xiiso badan halkan aad ka daawan doontaan iyo xoog xasaasi ah iyo shakhsiyaad badan oo aan helnay magacyadooda oo xubno baarlamaanka ka tirsan ay ku jiraan oo Maxamed Xaajow Ilka Case uu gudbiyay oo dukumiinti nisa ee ka sameysay iyo qoraal nisa ee ka sameysay oo nuqul ka mid ah aan helnay waxaad ka daawan doontaan barta YouTube-ka aan ku leenahay dhamaantiin waxaan idin leenahay Ilaahay haydi xifdiyo Ilaahayna umuraha leedihiin Ilaahay sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana wa umur al-muslimina kullaha sahla rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ilaahu dhamaanteen waxaan ku weydiisanaynaa gargaarkaaga iyo kaalmadaada Allahumma la maani'a lima a'dayta wa la mu'diya lima mana'ta wa la qaada illa qadayta wa la yanfa'u dal jadd minka al jadd ilaahu dhamaanteen awlaadina baraka ilaahu awlaadina xifdi ilaahu inta awlaad doonaysana ilaahu awlaadsi ilaahu magacaada wanaagsan Allahu la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-malik القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى إله waxaan kugu weydiisanaynaa gargaarkaaga iyo kaalmadaada iyo nasrigaaga ilaahu dhamaanteen banoo gargaar oo dhamaanteen waxaan ka maangalnaa kuwa sharta dhibaatada iyo lugooyada inala damacsan ilaahu wixii dhibaata oo shar ah oo lugooyaha oo inala damacsan ilaahu ku celi ilaahu dhamaanteen bayna xifdi oo inoo gargaar ilaahu dhamaanteen banaxriistaada nasiif dunya wal aakhirah wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.